وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. درسك كان إن شاء الله تعالى وتأملات كوبنا وكسول نقلنا إنه علماء المسلمين في الصشام الدايماي دايمودين سورة كالصورة سورة هان مركين ويقنو سورة داني waxay ka mid tahay quraanka makiga waxayna ku soo aroortay qisas guud ahaan qisaska ilaahay nabi maxamed alayhi salatu wasalaam wuxuu ku leeyahay faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun dadka uu qisay uga sheekay qisaska uga sheekay baa ilaahay yiri waxay mudan yihiin inay fakaraan qisasku marka sidooda ay cibar u yihiin wax lagu waana qaatay u yihiin لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب إلهي كتل المامية سبحانه وتعالى بل إلهي النبي يسيبه حكوليه وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وكلا نقص عليك هذا محمد عليه الصلاة والسلام وحن كاغا ورمى يا با إلهي إلهي ورركي النبي يدي تغي أما الرسول شي هره وحلابتاد أي كدك توكو حسشو وهدو الدعوة الشيخي نبي عليه الصلاة والسلام والتركي هرو دقيسان وايين إلهي قرآن كوحوغا ورمي نبي نوح وسقال بقول إيا كنتن سندود ييريي ودادك ربي وييريي وعندك لو چلق سينين إن يرمو يانانين كلا الرمينين بلا قويس كيسي إنان كوردالي أما حاسكو قبي قويس كيسي أي كفلاقو بين غيبة كمدي دادتكي دبده وحي إلهي كورمي سبحانه وتعالى هدو أخلاق حمية دغن حمية كعوضة إلهي وحو قرآن كورمي النبي لوط ودغن حمى قوم كيسو أي دمية حمى قرمي سمين شريني نادي قودا قوبت الله يسوي ما دابيكو سمين شرين يعني إن حمى الله سمية ومال قرصان لكو سمية ولي ونرورو لكن يقول ناديقة ما شاء الله يسوي ما دابيكو سمين شرين حماها هدي قوم دقالة يباع مشتر لتوغا لغا ورميو إلى النبي شعيب وغا ورميو توغو تلكي هايان مركا حقا باع مشتركة كيل كي ميزان كي وحي لمد لغا يغو كل ذلك إلهي وحط المامية وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك إذن قصصك waxay ka mid yihiin waxyaabaha bini'aadamka qalbigiisa dajiya wax wada qabwa aad bay Soomaalidu tiraahdaa daad ogaato waxa kani wax basharku kula wadaaga inuu yahay waxaad moodaa inay fududaanayso bal ilaahay wuxuu leeyahay kadhalika naqussu alayka min anba'i ar-rusul ma qad sabaq ba ilaahay subhanahu wa ta'ala rusul qura loogama waramin ee gaalaaba looga waramay qisaskii فرعون بالغا ورمي كوي جالوت بالغا ورمي كوي نمرود بالغا ورمي قال إلهي كورمي سبحانه وتعالى كو بدن إلهي بينيو قومم كي نبي الله صدر لغا ورمي وحاسو دمي وحي شيغيان إنو قصص كويهين وح لغو وانتوبه وقفك بنادم كا دعده كو دعده هداد قصة ونو شيكتو هادي قان أوران وحايا وحاسا كجرة قصة دو قرا هداد شيكتو أي وانتهي إلهي مركا وحلاي قصص بان كاغا ورمينا ترى بدن سورة دتني مركا waxay kamid tahay qisaska quraanku ka waramayo tiraba afar qiso muhiima iyo laba ishaara ba ku jira qisada ashaab al-kahf iyo qisada la saaxib al-jannatayn labada qiso markay sheegtaabay qiso ay ishaaraysa aadam iyo abuurkiisii iyo ibliis wixii soo kala maray haddana waxa laga waramayaa qisadii nabi muuse nabiga ugu badan ee quraanku ka waramay xawaali 180 meelood in ka badan baa magaciisa ku soo arooray baa la tilmaama 25 mawduuc quraan kamid ah nabi muuse qisaskiisa kamid ah meel kale quraanka ku olay halkan ku taala kadibna boqor dhul qarnayn la yiraahdaa ilaahay ka waramaya subhanahu wa ta'ala iyo qolo iyagana la ishaaray oo la yiraahdo yaajuuj wa maajuuj waxa kaloo ishaaraadku ay tilmaamayaan boqorro kaloo dulmi sameynayay
sidii kii doonta laga daloolinayay la yidhi waxa ka horeeya boqor doomaa qaata iyo wax la mid ah suuraddani markaa qisas bay ka warramaysaa gudaheedana ilaahay ku leeyahay naxnu naqusu calayka naba'ahum markii looga warramaya asxaabilkaafka suuraddatan sababu nusuulkay ku soo degtay riwaaya bay soo arooriyaan culammadu ibnu isxaaq laga soo arooriyo laakiin sanadku uu daciifiyey oo balaganii can shaykhin masriyin buu ku bilaabayaa sanadka rajul majhuuli uu ku jiro oo daciif ah ka sanad ahaan waa daciif laakiin kutubu tafsiir dhammaanteed waa ku arkaysaan waxaa kaloo ku arkaysaan culamo badan oo tacliiqisay qisadu waxay sheegaysaa qurayshi inay laba nin dirtay oo reer madiine loo diray nimankii yuhuudda ahaa oo la yidhi war idinkaa ahlu kitaab ahaan jiraye bal ninkan arrinkiisa nooga warrama yahuudi waxay ku tidhi markaa 3 su'aalood weydiiya saddexda hadduu ka jawaabana waa nebi hadduu ka jawaabi waayana maaha nebiyo wuxuu sheeganayaa ma jiraan waxaad weydiisaan dul dhallinyaro ah oo waa hore la waayey oo arrinkoodu cajab qabay weydiiya waxaa weydiisaan nin dunida maray oo mashriq iyo maqribba ka dhacay arrinkiisa kaana weydiiya masalada ruuxda la yidhaahdana weydiiya qisadaasi waxay sheegaysaa way soo noqdeen 3 su'aalood markii nebiga la weydiiyey inuu sheegay baraan idinka warrami doona dabeetana berri waxyi soo degi waayey dacaayadii markaa ay faaftay reer maka ay yidhaahdeen waa wixii la sheegayay su'aalihii waxba ka jawaabi kari waa wuxuu akhrinayay waxba kama jiraan 15 maalmood aan wax waxyi soo degin kadibna ay soo degtay suuradda tani culamada tacliiqisa waxay yidhaahdaan afarta qisa suuraddan ku saabsani ee muhiimka ah laba waa su'aalihii la weydiiyey midna dee aayaddii kale qul iruuxu min amri rabbi wamaa utiitu min alcilmi illaa qaliila ba lagaga jawaabay labana qisadoodii halkaa lagaga warramay labada kalena waa canaan bay yidhaahdeen labada qise kalena midna yuhuud baa la canaananayaa bay leeyihin midna quraysh baa la canaananayaa mid yuhuud baa la canaananayo qisatu saaxib aljannatayn dee intuu xoolo helo ilaahay nimceeyo barwaaqistay buu kibroo rabbigii dafiray iyaguna nebigoodii oo la joogay oo ay u garanayeen saadiq ilamiin oo taariikhdiisa ay hayeen oo intaasoo dhan ogaayeen ayay inta iska dhaga mareen bay qola aan aqoon tidhi bay soo weydiinaynaa qola aan aragba yuhuud meel kale magaalo kale joogta ayaanu soo weydiinaynaa caqligu wuxuu ahaa caadiga ahi kii uu hiraqal ku dhaqmay hiraqalis markii uu nebigu waraaqda u diray ee waraaqdii gaadhay iska soo koobno xadiidka bukhaari ku yaalla wuxuu yidhi war bal cid ninkan garanaysa ma la hayaa niman quraysha magaalada jooga baa la yidhi kuwaa igu yeedha buu yidhi quraysh buu u yeedhay nimankii quraysh ee meesha fadhiyay abu sufyaan oo gaala baa ku jira abu sukiine ugu qaraabo dhow buu yidhi nimankiina kan waxaa la yidhi ninkan baa ugu tolliimo dhow abu sufyaan iyo nebigu dee ilmaadeer dhow bay ahaayeen reer banu cabdimanaaf bay isku ahaayeen ninkan baa ugu dhow baa la yidhi xaggan hore soo fadhiisa buu yidhi inta kale daba fadhiista idinkan waxaan idin idhi buu yidhi hadduu been ii sheego waa waxaas ma jiraan dhaha isagana as'ilaan weydiinaya 14 su'aalood buu weydiiyey markaa 14 su'aalood waxay ahayn assessment ama baadhitaan uu baadhayo nebi maxamed warkiisa calayhi salaatu wasalaam iyo diintu haysto wuxuu weydiiyey dhalashadiisa cidduu ka dhashay reeraa yaryar buu ka dhashay mise reeraa xooggan buu ka dhashay wuxuu weydiiyey aabihii boqorra ma ahaan jireen wuxuu weydiiyey hore been ma ugu ogeydeen oo wax beenoo hore u sheegay ma haysaan wuxuu weydiiyey muxuu idin faraa diintiisu waa maxay waxa uu idin sheegayaa wuxuu weydiiyey diintiisa dadkii qaatay wax intay qaateen haddana dib uga noqday ma haysaan oo yidhi war waa iska daynay waxba maaha wuxuu sheegayo 14 su'aalood oo noocaasiya 14 su'aalood markuu u fiirsaday wuxuu ka dhaliyey inuu maxamed nebi yahay calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu yidhi waxaa ii sheegtaan hadday xaq tahay halkaa cagahaygu qabsan doonaa markaasay ku qayliyeen nimankii kanaayista iyo odayadii iyo nimankii meesha joogay markaasuu yidhi ninkaan idin eegaya oo iska hadlayay yacni wuxuu u dan lahaa ninkani macnaheedu waxa weeyaan bay leeyihin qisada tani markaa quraysh idinkay ahayd in laydin weydiiyo laydinaa warba ninkan ka warrama saahiraq laydin weydiiyey laakiin ay quraysh safarto inta yuhuud u tagto tidhaahdo ka nala jooga ka warrama waa maan qaldan
قصة كلنا وحيد هذا وحي عنان كطهي يهود لفتيدي وهذه سؤال لجرن ويا النبي نمد اللي جوا أيه نبي جوين أنبياء الرب إسرائيل إلا يقنوا موسى سماها قصتنا وحي كورا مثلا سدح سؤال ده موسى جرن ويا هذه مركز سؤال لجرن ويا اللي قلنا بالنبي وياه ده يجي يدبوا نقنسه هو حي هيدين وده مركز الله هذا موسى نبي نقن مايو هذه سؤال اللي جرن وياه ده بتنا قصتنا وحي تلمامسه نخضر الله هذا عبد صالح وموسى الراعي وده بتنا كل ما أنتوا وحسميه وموسى جرن وياه سدح سؤالات بموسى جرن وياه هذه مركز سدح لجرن وياه أرنتوا اللي قلنا بالنبي وياه إيانا وحي كنت هيبي لهين عنان لكن قصته ضوضوبهان سنة كيدو محوقنا علماء الحديث وضعيف بيليه marka inuu hore uga gudubno suuradatan iyo waxa ku soo arooray axaadiis badan baa ku soo aroortay nooc walba leh waxa kamid ah imaamu muslim xadiisku saxiixiisa ku soo saaraya uu leeyahay man xafida 10 aayaat min awwal suurati al-kahf usima min ad-dajjal toban aayadood oo suuratu al-kahf kamid ah ninka qayba dajjalka waa laga dhowraa ama دجالك الرب سبحانه وتعالى فتنة سوك إلالية وحكى له كم ده رواية مسلمة ينور نيسا من آخر سورة الكهف سورة الكهف حق بجبدة ده طبعا كم ده علماء ده بدبا وحيد هذا وحال راجحة طبعا كهور الشيء وحكم ده حديث كسار أرتي سورة حديث البخاري مسلم سورين أيان شيء يقرأ رجلنا الكهف نبا كهف أخريي قرقي سنة نف حولا أيا كحدنا دبتنا نف كيوم با وريقي وديضي كدب صوب حي وحاركي وحاد ضرور موضوع ما شبه هريي مركو تشوتشينا ويكي يرد كان مركو أخرينا وكسو دوادان نبي الصبح وشقى عليه الصلاة والسلام دبتنا نبي حقولي اقرأ آخر سورة هذا بلد فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن والسكينة دي مفسرين تقاربا كتل ما مينيتي ملايك سكينة للشيء أو سودك تي سورة تنخرس كده وحيابها كسا أراري سورة هي فضائي شيء ده وحكم ده حديث أبي سعيد الخدري اللي قورينيه وشيء من قرأ سورة الكهف الليلة الجمعة وفق سورة الجمعة آخرية هبينك الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين العتيق فيما بينه وبين البيت العتيق وحالله إفيا إنت إساقا نور باوصو لصيا وإفنا يا إساقا إيو مكا إنت ودحله أحاديث دا بسعيد الخدري اللي قوريه يكو صابسي سن مسألة التاني ما مرفوع با مسوى موقوف وحيلين موقوف نمضى صحيح نما بدن حديث كشيغي ليلة الجمعة أو يوم الجمعة من الصحيح بامس الصحيح معها أولا وحيسكوها فقسيين إن صورة النور كأيلا ضي حديث كسار ورتين يشرتو أما إن الجمعة قار كنت هي إن أنا قار كواهين جمعها إن قار كنت هي هشيم ومن رجال البخاري هشيم بن بشير باورينية لكن واحد خلافي لبا إمام أي مدى وين حديث كمدة الشعبة هي سفيان الثوري كعلماء قارنا ويسوافشي أنا واحد حديث كساس وكوا صحية وما لتجمع الآخرية شيخ الألباني بكمدة الرجع ساكت تجي رجع بدنا ويكل الرجحانة وحيد هذان هشيم يوم الجمعة هي أنت شيء يوم الدرادة واحد جمعة يوم كذي هبين كذا كصاب سنة تونا ما صحينه إنه نخرس كذا لقى حلو نور كاسي أي أصحي أو رواية دمر كاسي أي تلمام أيان سفيان الثوري هي شعبة أي بدنيهين لكن علماء بدن وعلماء الحديث كم ده جودهان ويا صحية صورة ما كدحية صورة هي علاقة يدا كدحية الدجال محيتي حديث واحد المامسة حديث بدن وصاء رارتي أو أنت الله آخرين أيه كوكا لقيت من قرأ سورة الكهف كما أنزلت حديث أبي سعيد الخدري رواية كيس قاربة وحليه من قرأ سورة الكهف كما أنزلت ثم خرج إلى الدجال لم يسلط عليه أو لم يكن له عليه سبيل
ninka akhriya suuratulkahf sidii ay u soo degtay u akhriya aan ka tabartabarsiinin laguma itixaamo ee dajaal uu soo baxo dabeetana dajaal laguma itixaamo riwaayad kale waxay sheegaysaa 10 aayadooda ugu horeeya oo xadiidka Abu Darda man qara'a 10 aayaat min suurati al-kahf usima min fitnati ad-dajjal 10 aayaat way itlaaqday 10 aayadood oo kamid ah riwaayad kale waxay sheegaysaa 10 aayadood ugu horeeya laakiin xifdi bay sheegaysaa man xafida 10 aayaat من أول سورة الكهف عصم من الدجال رواية كلا شيء آخر رواية كلا شيء قراءة بين حفظ بين أنا يحين فواتح الصور حتى رواية كقاربة شيء صدح مركي نسكو صد وضوبنه سورة الكهف وحكم إذا أمد ما أنت يضل آخريه والرئيسية الدنبيسية مال دحية صدح مذا تراه ضبا suuradaasi oo la akhriyo waxay qofka muslimka ka xijaabtaa balada ugu weyn ee dunida soo maraysa bala aanay jirin bala ka weyni dunida waxa mushkilad ka dhici doono oo dhan waxa ugu weyn dajaal nabigu wuxuu leeyahay alayhi salaatu wasalaam ma bayna khalqi aadam ila qiyaam as-saa'a aadam abuurkiisa إلى أن أنت قيامه كدعيه بلك وين إيمان ما يسد دجال بالنبي يري ولذلك بالنبي سيدي وقد يدقي حديث الصحيحة أي صحابة قاركوت بقين بقى أو سيد هذا الملا ما لهن الدوبة بتشوجا مطروق سنة الدجال كان والنبي سيدي تنو قد يجيه وأمر كده ما هو النبي أركينا يبقى يانا ويري ما دجال كان دين تلماما كبقى يسان هذا الليلي وحولي أنت هنشوجنا أنا حجيجة أنا دودا يا أنت هنشوجنا إذن كبلا إذن كسو قاري ميسو هذان أنا قال الله يوف صدنا هل كاسك كقرنت إنه قال يهوي القرولية ومسلم ولا بابو قرنا يا أبو النبي قلت المامي عليه الصلاة والسلام مدي ذكر قرصومية معها هذا بس صورة دتن يا آخرين تيدا هي الدجال محاكا دحية الإمام الندوي رحمة الله عليه وعليه الرسالة ما كتاب عان والله هذا الصراع بين المادية والإيمان رسالة ده وحكا ورمى تفسير الصورة صورة دطن هي تفسير كذا عليه أنا قو يربى لي وأبابيين صورة دطن أخريه جمعة كستوان أخريه جري مركي دنبان علم الحديث وحكبرتينا حديث تدي رجل إنسان ركيبوري مركي دنبان مفسر بان نغضي بولي جماعة لكنه تفسير كأخريه وهذا بتنا علم التفسير بصير يحقله لكن سؤال بان بدن سويدين يبو ايري صورة وحلا يدي قراءة دي آخر سكيدة دجال بيع لنيسا محاك الدحيان إن بدن سويدين يبو لي دجال طلب هي صورة محاك الدحيان علاقة كدحيسا معيت وحقوق بقبين إياه ويسقوا اجتهاد كيسي مركاسي وسيي isagoo quraanka oo dhami uu nuur iyo faa'iido yahay quraanka oo dhami shar oo dhan la dagaalamayo quraanku yahay risaaladii xagga rabbi ka timi subhanahu wa ta'ala hadana wuxuu leeyahay waxa jirta suurada tani inay akbar maada waqzariha fima yatasil bi fitan al-ahd al-akhir ku jiro maadada ugu culus ee ugu xoog badan leh ee la xidhiidha fitanka qeybka iman doona ee dajaalu kowka yahay ba jirta buuri وحد تلمامي مركها لفظك كان دجال الدجال من الدجل دجل الصيفة أي موها أو طلاه بالذهب أريق دجل وحويا وحمرك الله ده صاره ده مركا وح الرسم يسوي قرية ووحن شري ما لقوا تصي ما ددي الرسم هاي ما دركتي دجال كمركا سيدي سبك كذاب قال هذا بين علىها waxaan jirin budda ku dheehaya oo rabayna runo qaadato fahuwa dajjal dajjaladana waxa ugu weyn kuwa diinta beenta ka sheegay dheeha ama waxaan diinahayn dadka diin uga dhiga dajjal waa wax tamwiihiyo waa ka ugu weyno wuxuu sheegan doonaa ilaahnimo iyo nabi wax weyn buu sheeganayaa wuxuu isku dayayaa inuu diintaba dadka ka saaro walidaalika nabigu alayhi salatu wasalaam أحاديث كاس صحدي وقت المامية
حديث حذيفة بن اليمان ورنا يوا كشيغيا هدي دجالكو يمادو إنه وحو سمينيا أو يهي إيمان دونو إساقو وطا بيو يدب نار لبدا إساقو وطو إيمان دونا حديث قال لبس الصحابة ودورينيا وسمر خاطفريا عقبة بن عمرو أبي مسعود الأنصاري يعني الربعي بن خراش وعقبة إياك ودورينيا حذيفة عقبة ويمي حذيفة ويديني يسواش مركو الشيخ أبو لي أنا الصداعات شيكتبان كم مغلي نبي عليه الصلاة والسلام يعني لماذا الصحابة يسقوا فقيا حديث كوحو الشيخ يا صحيح مسلم ككويا له دجال كوينو إيمان دونو يسقوا بيو يدب وطه نبي حلي مركا فأما الذي يراه الناس ماء فالنار تحرق كريدتكم مودا يان بيها ودب وحقوبا يبو النبي كيدتكم مودا يان دبكنا فماء بارد عذب بو نبي وبيقبو ومعان فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي يراه النار ونكي دجال سو غاراو كو دبك كو شيغايا كو دعابو النبي عليه الصلاة والسلام كو يساقو دبك كو شيغايو كاكو دعا كاسا بيابو النبي لي قبوه فإنه ماء عذب طيب أي حديث كنت المامية حديث كان السيدة وشيغايو أما الدجال يقروب كالله صعدون ما يشيغايان وضدكو حقيقة إن لقالوا ميو وحانا هين لو شيغو إنسانكو أصلا إلهي سيدوا أبوري ولقد كرمنا بني آدم بولي ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم سيدا وقوقو ممانو أبوري با إلهي سبحانه وتعالى بني آدمكو سيدا عادي قامركو جوغانو مصالحي وحكالي إيغينين مقاطو باطلكو سيديسا عقلي سما أقبله عقلي هو ميزان إلهي سيي بني آدمك باطلك الرسمي سيديسا وما أقبله dadka raba baadilka in la qaata marka waa muwawihiin waxaan ahayn bay ku sheegaan waxay ku oranayaan waa la horumaraya waa dimuqraadiyad waa xorriyad waa cayn asmaa kale waa in la sheegaa cadaalad barwaaqo horumar saad horumar u moodayso in godka naareed lagu hubiyaa marka iblis muxuu sheegay aadam markuu rabay inuu ka saaro jannada ma yidhi war aadan ilaahay caasi maya آدم حول الله ورد ربك عاصي ما يورد الدف وعقول هل أدلك على شجرة الخلد ها وملك لا يبلى شجرة الخلد جيت كالغواره يا لبرد مننا ما ملكك وار يلي هليو ما نكو شيء يا أبو كير وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين ولبوا عقول نارت إنه الناصح يهينا دار بالراعي مو أورانين ورعاد وباندين هوارد اللومينيا وحو ولي بالله استكمر إنه يهي محي ناصحين يهي آدم نكن والله هي بالله مريا وحن شيغي وكو كتسومي وركيسي وجيتي بعوني لكن جيتي مركو عني وحا كرتب مي إن حقي لقيه إن دول كلا كانوا أول واحد اللي جنة ضي شقي النمو يا هراد يا عادي يا وحبطوا أنا على ضكينين لكن تجابة أمركو قالي وحل يدي دول كودا دقة يداد مستغرية مطاعبة كل يديني إلى حين عدة وحلو من سمركة وحيعان كنت يعد كستو وحلو من إسا ودنا ضي الدكتاتور ردا يا وحكاني مركة ودنا أفكت شبيني أنا مبوبيان مية يراه ودنا كاس ويسكي قدوا لنا واقف صرنا ما يوحي ورانيان دكتاتور شبكة جرا عدالة دا لا غارسينيا ما حرية دا لا غارسينيا waa erayada la isticmaalo yani haduu maraykanku yiraahdo Ciraaq waan iska qabsanaya ma cid ba raaci lahayd dictator bal reeweyn war kala sheega ولذلك حقيقة دبته صورة درت المام سواحته أما الدجال كحقيقة دي سنبطه وحويان ومموه وبين له وين دوني ده سامر دونه الضبي النار انتو يسوي داريه نار تنكو شيء دونه الضبي النار كوا وحياة بني آدم بسيط عادي أو يقانين لكن كان واسح الرالة خطرة إلى حد وضدك يسوي داريه الضبي النار وضبت أنا الضب كان وخش جيني بيجين ودتك بيمودان
naartana uu ku sheego maxay biyana uu naar ku sheego dadku naar moodaan oo nabigu ka sii digayo leeyahay waxa walaaqayo dhan waxba kama jiraan ku idin leeyahay baa daba ayaa biyaa abu nabigu yiri calayhi salaatu wasalaam ku idin leeyahay waa naarna waa biyo idan dajalku waa ka suuradda tani markaa waxay ka warramaysaa qisas sheegaya laba ra'yi inuu bini aadamku dunidu taalo ra'yi ilaahay aan rumaysanayn oo maadada rumaysan asbaab iyo nataa'ij macquul oo kala ratibma wax quwo oo awoodo ka dambaysan aan rumaysanayn iyo ra'yi rumaysan asbaabta maadigiina inay jirto waxna ka ratibmaan rabbi xukumo oo marka horeba tan dajiyeyna inuu jiro oo hadduu doono khilaafi kara quwo ka xoog badan asbaabta maadiga la yaqaano walidaalika qisas karoo dhamme waxay ka warrami doonaan wax sidii loo yaqaanay aanu dhacaynin nataa'ijta muqaddamaadkii iyo nataa'ijtii la kala ratibi jiray waxaan sidoodii u dhacaynin ayay qisas karoo dhamme ka warramayaan waayo waxay ka warramayaan afar qiso oo mid waliba nooc tilmaamayso mid waxay tilmaamaysaa dhalinyaro ilaahay rumeeyey oo dadkii ay la noolaayeen ay wathaniyiin noqdeen oo dabeetana ku noolaan kari waayey ama ka cabsaday in la dilo oo ay noqotay inay kala doortaan xayaat biduuni caqiida ama se caqiida biduuni xayaa inay kala doortaan nolol diin laawanimo ah laakiin la iska noolaanayo ama nolol la'aan xagga geerida xigta oo maxay diin la ilaashanayo caqiida lagu dhimanayo suuradoo dhan qisadii inamada tan baa magaceeda loo bixiyaa alkahf kahfiga waxaa la yidhahdaa godadka waaweyn ee buuraa ku yaalla waxay dhahaan godku hadduu yariyo buurta ku yaallo qaar baa la yidhaahdaa hadduuse ka weyn yahay kaa markuu waasica yahay ayaa kahf la yidhahdaa waa meel la degi kara kahf markaad maqasho kuhuuftu yacni waa baholaa waaweyne ku dhex yaalla buura ee dad iyo xoolaba la geli karo marka nimanka kan qisadoodu waa kahful iimaan bay galeen maladaat alxayaat iyo nolosha oo dhan waxay ka doorteen maxay inay galaan god qisada tani waa qaybta koowaad qisada labaad waxay tilmaamaysaa laba nin oo midna aanu waxba haysanin midna loo nimceeyey oo beera leh oo beerta wax waliba uga baxaan oo zarci iyo nakhiil geed sare iyo kan gaabani labaduba ay ka baxaan oo nimco ku jira oo dabeetana aakhiraba beeniyo yidhi cidna isa soo saari mayso cidna soo bixi mayso la taagan oo kii miskiinka ilaahay rumeeyay uu leeyahay war hadda rabbi uu halaagay intan aad moodayso naf bay leedahay isku hagaaraysaa kadibna intiiba laga halaagay oo meel cidla faraha taagay qisada kalena waxay sheegaysaa nabi muuse oo sidii bukhaariga xadiiska ku yaallay uu tilmaamayay sheegtay war cid ka cilmi badan ma garanaysaa baa la yidhi may buu yidhi cid ka cilmi badan dunida ma joogtaa may dabeetana rabbigii ku yidhi qolo kaa cilmi badan baa jirta dabeetana cilmigii uu safray oo u xidhxidho rixlo u galay nebinimadiisii kuma koobnaanin iyo wixii rabbi baray iyo kitaabkii loo soo dejiyey ee cid la yidhi waxbay ku dheer tahay ayuu u xidhxidhay inuu safar iyo canaa u galo si uu wax uga soo baran karo dabeetana saddexda qiso aynu naqaanaa ku dhacday oo saddexdii masaleba intuu garan waayey uu sabri kari waayey sidii uu wax u arki jiray si aan ahayn ay wax u dhacayaan qisada ka dambaysaana waa boqor caadila oo dilqarnayna oo dunidoo dhan maray cadaalad wax ku xukumay kuwa ahlu fasaada meel ku xidhay dadkii u soo cawday intuu ka xidhay weliba aan mushqaayad iyo waxba toona ka qaadanin ee yidhi uun anigaa idinku sadaqaysanaya farsamada iyo waxaas iyo idinkuna xoogga uun la kaalaya oo saasii ku dhameeyey
إذن قصص كان دمان تدوحا إتلماما يعني وحيابات خوارقة أما وحيابات كرامات أي كم موقضان وحنا أفرت قصة وحي شيء وينقود مرينا مدنا كبر داعينا تكواد وحي لين وفتنة الدين وقف دين تسيلا يتحامي مدى إيماني مدى قوة إيماني انتو عقيدة دي سحوق انتي أفحسبتم إلهي مع قرآن كنت البامية ما هو حاوم علينا سامبا ليدي محي إن ليدي كجت جيو يضان محي ليدي نتحامين والله ليدي نتحامي يا باي لهي لا يوم موقضه كينا مجاهد كرنبت من تتكاهيو إيه كينا إسكاه هيدون حق دتكو بدني راعي كيني تاجنا ومن الناس ما يعبد الله على حرف كي اللي يدعى الكو إلهي كعبد يايو أدي برواق الله لنا وصعنايا هذا يدي وتبادنا وردين تابا نوقو عن بولي وحن فقر قرية دفتري مشكلة دور دم بيدان جلسي ودبوا قبحيا إلهي وحو التحامي دول بعد دين تودا الله يتحامي دول كدين تودا الله يتحامي ورد اللي يرو ما أها ددوا وين وفتية با إلهي كتل مامي دلن يرو لكن ورد اللي يرى الصفات قارة له فتية آمنوا بربهم ورد اللي يرى إلهي الرميسي إلهينا هانون كرديي ورد اللي يرى إلهي اسكو حدي إلهينا قلب قو حدي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا إلهي بقلب قوي وأدكي مركي يقول عمل خلي مادين ورد اللي يرى نلش ملذات كذا كدورتي إيمانك هي فقرك وضع صعدي كدورتين نعيمك يا برواقض الله هيو إيمان لأني لا صعطه ورد اللي يرى ودن كودي أقلاتين كبحان يدد كودي وهجرودا بسبب دينهم دين تودا لغو دبايا إني بدبات سدان درادين ورد اللي يرى نلال بدي إني قد قلان لكن إلهي سبحانه وتعالى كرامات كشيغي أنبياء ما يهين هذا وحانو لغا شيغي هو كرامات كان شيغي waxa kuugu filan xataa aygoodii ilaahay quraanku ku sheegay iyaga daayay aygooday wateen walidaalك bay culimadu waxay dhahdaan dadka khayrka qaba hadaad la saaxiibto laguma khasaaro hum alqawm la yashqa bihim jalisuhum bu hadithki tilmaamay kuwi wardinayay ee ninka xaajada iska doonayay ula soo fadhiistay ilaahay malaa'ikta yiraahdo dambigooda dhaafay ay malaa'iktu tiraahdo rabbow mid isagu dan laba ku jira aan wardiga u imanin ee ilaahay uu ku yiraahdo humul qawm la yashqa bihim jalisuhum wa dulanka la fadhiyana hoogin ba ilaahay ku yiri subhanahu wa ta'ala idan dulkan saalihiinta ah aygi la fadhiya magac yeeshay rabbiga xusay ay rabbi rabbus samawati wal ardi wa quraankiisa ku soo dajiyay wa kalbuhum basitun dhira'ihi bil wasid وأي ربي حصيا وحلو حصيا محي صالحين تقول الله صعدوا دتك ونكسنا ولا صعدوا أهل الشركة مركا كدهروا أنت تخيل كتهم يسرع إلهي سبحانه وتعالى اللي يرضى مركا إلهي بعدين إيمان يعمل ضبوا أين اعتزالان إن هجرودان سقط ضيان إن دول كم كبحان وحلو أبال قدي قد كأم من كائن إلهي دتشيو oo ay iskaga jiraan oo ku noolaan karaan oo la seexiyay intay la seexiyay ilaahay quraanka ma ku tilmaamay misay hurday suuratul kahf maxay leedahay 300 soma wasdaadu 9 baa la socotay 300 oo sanadood ay culimadu yiraahdaan waa hadii shamsiga laga tiriyo wasdaadu 9 kuna bay yiraahdaan waa hadii qamariga laga tiriyo 300 سنوات شمسية أما 309 سنوات محيا قمرية تاتري سبا 309 سنوات بني آدم هرده وشري كرامة شرا امسو كوكاتشون يا غفك امسو عنا كمارما بني آدم امسو سبيا كمارما عنانا وقتي يربو كمارما بينا وقت كسي يربو كمارما دو إن يربي عبي وايو خلاص
ويكبوديسا هدو حقا يرعنا عني وايانا وكبحيسا قلدان انتا سو بقولو سندود بيهردين waxaa intaa u dheer bini aadamku hadduu dhinac qura u jiifo u qurmaa dhanka hoose waa sababta keentay dhakhtarrada dadkan jilicsan waa la rogrogaa neersin kolba dhan haddaad dhan qura u dayso dhankuba diirkaa ka dhacaya u qurmaya ilaahay qoladatan muxuu qur-aanka ku sheegay taqliib waxaa la sheegay in la gegedinayo intaasi aan dhinacuna u qurmin ilaahay wuxuu leeyahay maxay وجديني بار رب الله سبحانه وتعالى سدح بقول السنة ضد بهالكاتشيفين وأنا اللي جديني عننا وما يباهن وحكوا إلى هي نقطة الماما يا قصة دودين الدليل تهي آخره ثم بعثناهم حال يدي ليته وصلنا لين يبا إلى سبحانه وتعالى سيسوي ديا وقرآن كأدلة البعث سيدات دليله كلا نوع قرآن كويه لو مد ولا بت الماميو قيامه إنه الدليلية وحكم ده الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها كون والله أفسد صلح بقول يسقال سنضاد بالله أفسد ولذلك بقى إلهي وحده ثم بعثناهم بالغة المامي إنه بعث هي بعد التوفي إن لا صاري وحكم إذا قصة إيران بنو إسرائيل البقرة كشرتي كيد انتهي لي بكل غرفتي صاكعي وحكم إذا قلادة قصة دوده وحكم إذا قصة كلايك والربيس في سورة البقرة نينكي دميرك وتي يري سكون سي الله ونوليري مقالة انتو يمي سجل الدلي سجل دميرك يسيبه وحكم إذا قصص كالراب كإلهي وكت المام سيدات دليله كلا نوع قرآن كويه له وانتو بط المام يعني البعث بعد الموت ني دليلته تنبا كم إذا إلهي أودي سوينة سينية ضد أنت اللي تديله الله ينكره سدح بقولي سجال سنة ضد بترسون ولا كريه قصتك حكتانا قصتنا وفتنة الدين مركه قصتك حكتانا وفتنة المال حولها وامتحان يبنا ضدك برضه وحيو يغانين امتحان كم حي فقرك يا قاتشضة يا دجالة يا علاضة يا ككلنا وامتحان نبض يا برواقة يا برارة يا عافمات يا وحصل ما امتحاني أنا والله بدي امتحان من النبي أيوب لمريم من النبي سليمان لمريم والله ما امتحان نبي أيوب من نعم العبد بإلهي يدي مركو امتحان كي كقول يستي نبي سليمان محل يدي نعم العبد لا بدأ قصة نعم العبد إنه هو بإلهي الله الماء أيوبنا امتحان كبل مريم حنون كي يوحي لمده سليمان وحل مريم امتحان كبرارة يا برواقة يكن مدنا وحلا قرب أين شكر النقضة مدنا أين تصبرتين إن كان مو شكر نقينا وحيلي آخره بما شرته إلهي مضفرا وامتحان كان علم يقول هو امتحان مركض وحبرته علم يقول لبا ميدون بو نقضة ميداد نفط هذا وبرته ربك كو عابد يسو وعرب كاجي جوارح دادات كو إلى لنسان الحمكاردعين وربك كبر يسو كو عابد يسو dadka kale wixii aad anfici kartanaad ku anfacayso iyo mid loo barto in lagu faanfaano oo la istusiyo inaad halol cilmi tahay dadka oo wixii aad aragtana afka la jabiyo aad tiraahdo waxba ma kala oga kii wax sheega baad tiraahdo waa beenti waxba kama jiraan wax ma oga yani cilmiga faanfaanka loo barto dadka ugu horeeya neerta galabuu ka mid yahay نبي عليه الصلاة والسلام عن المامي حديث كي شيء صدح دي أول من تصعر بهم النار كوا وجه الريا نار تلوجه الريا صدح بوجه الريا بالنبي قولي مد جهادي هي مد حول بحصدي هي مد قرآن أخري وصدح عمله صالح صامها صدح دبل لله مركي كبحين وحين نقدر عماشه وجه الريا نار تلوجه قاله جهاد كاغو هدو دنا كلا نقضه يا دورك كو كعستي iyo marka reerkiina laga yaraa tun roonaada tiraado waynu jahaatamayna marka diinta la caayana tiraado maxaa ka galay diinta ilaahay baa iska leh waa ka naarta lagu galo kamidi jihaadka aan lilaahi ahayn waxa kaloo naarta lagu galaa sadaqada aan lilaahi ahayn hebel waa faxliyo nin gacan fiican iyo
xagu ka xiga nin baa ka xiga dee nin baa ka xiga lagu yiri intii aad adduunka joogtay aakhire waxba ku heli maysid waxa kale oo naarta lagu galaa quraan akhriska fiican ee codka wanaagsan lagu akhriyo salaadaha lagu tukado caynkaasi ee hebel waa qaari una doonaysa waqad qiil baa la yiraahdaa idan cilmigu hadduu ikhlaas iyo tawaaduc waayo faa'iido ma leh hadduu tawaaduc waayo iyo hadduu ikhlaas waayo labadaa hadduu waayo faa'iido ma leh idan fitnatu lcilm ayaa qisadaana laynagu baray qisada ugu dambaysana fitnada sultada laynagu baray powerka dadku inay madax wada noqdaan bay jecel yihiin laakiin madaxnimadu maqnam maahee waa mas-uuliya dadku waxay moodayaan in wasiir la noqdo ama madaxweyne la noqdaa inay tahay meel saroo la gaadhay war waa meel khatar oo la gaadhay meel khatara oo la gaadhay waayo dadka in yar baa ka baxda maadaama in yari ka baxdo kuwa ka baxa waxaa la yidhi waxay ka mid yihiin toddobada carshu raxmaanka harsada maalinta qiyaamaha maxaa ugu horreeya alimaam alcaadil baa ugu horreeya maxaa toddobada tan loo tilmaamay carshu raxmaan harsanaya waa dad dadka kale ka gedisan ama inta ka soo hadha waa fainaha khizyun wanadaama buu nebigu yidhi khizyun wanadaama waa hoog iyo murugo waa hoog iyo nadaamo wuxuu qur-aanku ka warramayaa markaa nin cadaalad u adeegsaday sultadii uu hayo dulqarnayn la yidhaahdo afartan qisaba markaa waxay tilmaamayaan fitan alxayaa markaa dajaal afarta tuu kuula yimaadaba waa inaad ka badbaaddaa waayo afar qiso lagu badbaadaa lagu sheegay haddaad ka haf akhrisatay oo aad caalimtoo ka haf si fiican u fahamtay dajaal warkiisu ku mari maayo hadhow hadduu ku yidhaahda waan cilmi badanahay waa badda kula dhac ku marsiin maayo hadduu sulta iyo madaxnimo sheegto ku marsiin maayo hadduu xoolo iyo laaluush wax bixinayo ku marsiin maayo hadduu diin qaldan wadana ku marsiin maayo afarta shay ee lagu fatmoobaba waad ka nabad gashay haddaad suuradda tan fahamto idan markaa dajaal waad ka nabad gelaysaa ka haftaad maalin walba akhrinayso hadday kaa dhaadhacdo walidaalika baa waxaan leenahay suuradda tani waa qur-aankii makiga ahaa ee nebiga ku soo degay intuu maka joogay ee laga xoog badnaa isaga iyo saxaabadiisaba waxay tasliya u ahayd markaa saxaabadii iyo nebigii laga xoog batay ee dadkii ama sultada haystay ama xoolaha haystay ama magaciiyo maamuuska lahaa ama diintii meesha markaa ka jirtay watanigaa haystay cadaadintay ku hayeen saxaabadana waxaad ka garan kartaa suuradda tan iyo say u akhriyi jireen ama u laazimi jireen albara ibnu caazib waa inaga tilmaamayna xadiidkii sheegayey saxaabigii akhrinayey ay ku soo degtay sakiinadu ama xadiidkii abi daawuud baad garanaysaa xadiidka abu daawuud lafdigiisa kuma jirto laakiin riwaayo imaam albayhaqi warinaya ku jirta xadiidka sheegaya labadii saxaabi ee iyadoo dagaal laga soo noqday la yidhi ilaalada gala laba ansaari baa la yidhi ciidanka yaa ilaalinayo annaga bay yidhaahdeen labadii nina ilaalada haba midna yaro seexday midna uu yidhi dee nawbada inay isbedelaan toosi marka aad waqtigaaga badisay kii wax ilaalinayay ayaa salaad iska galay isagoo salaada ku jira ayaa nin gaaloo ciidanka daba socday oo gaada ahaa ayaa soo gaadhay dabeetana wuxuu arkay ninka kan dabeetana gamuun buu ku gana waa ku muda gamuunkii waa galay waa iska jaray dhiiggaa fakdahaya salaadu iska wada gamuun labaad buu ku dhuftay waa iska jaray dhiiggaa fakdahaya salaadu wada kama bixin gamuun saddexaad baa lagu dhuftay leebkii saddexaad baa ku dhacay waa iska jaray salaadiisu iska watay saddex markay ku dhacday ayuu rukuucay dabeetana dhaqdhaqaaq markuu sameeyo ninkiis yidhi wallaahi waa kaa dee dhaciye ka carab waa iska baxsaday dhiiggii iyo mushkiladdii ninkan ka timi baa toosisay kii hurday عمار بن ياسر وشيفيه ورزق كان هو بشر بن عباد هل لا انبهتني بيدي محادي توسين ويدي انت وحني كوكو دعيه وعلي سورة قرآن أخرين يو وحن عبايستين كالوجويو إمام البيهقي في شعابه بن رجينية وعكو سارورين ينو كهف أخرين صحابة كهف ساسي ولا نغمة يعني ورما كنا عيان ويسقوا كهف أخرين يان الربين محي إنو يسكجويو كهف أخر استيدا وحل يري وحادثة النبي قلت المامسة نور إن الغصين أيه كو إفين أيه محي
بينك وبين بيت العتيق أما مكة نورك وإحنا رشا لغو إفسده صوماها إفكو مدوغا لغا قبحو سورة الكهف هو نور علمية ولغو إفسده مخرج للفتن ويا ومد لغو إفيا ما لها فتنة لغا قبحو نور حيوتها محي لمنهج المسلمين في العقيدة والعمل ضدك مسلمين تي مناهجة الرباين الراعة ومحيئة ماتيريالك أما أسباب تمادي قال يقانو قرينا ند مودين إنيهين وح كرتب مانه أسباب كلا جرته أو وح كرتب مان ومحيئة أسباب كلا وح كرتب مان وإيمانك عملك صالحة دعاء إله إلا بريو استغفر الله يسير ذكرك وأسباب أي كرتب مان إن روبدو إن رزق بلاردو إن برواق الله هلو إن عافمات الله هلو إن لبرارو إن لهلو مرو إن عدو قاقا إلا تشبيو ويكرتب أنت أسباب تمادي قاو حلين إلى النغمة لأن ما أردن أنت عصقور السماية أسباب تمادي هداد عيد سكي على نسان واعدوا لهم ما استطعتم من قوة صعبة قولة تاقا لأن ما أردن وحلين واعدوا لهم ما استطعتم من قوة لكن قوبت مركة تكتان محيدها ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ذهب ليلي محي وذكروا الله ذكرا كثيرا هذا لك ولنتان باليلي فئة فسقم واذكروا الله كثيرا سقم إلهي بدن حسا إذا والله بس سببات سورة دني وحين بريسا مركا قفك مسلم كان منهج واعتمادا وحويان كو منهج وحن مادي قاو والله دغمه وقرنا يا محي انت اللي حوك ستقوه ان ارساقك كرتبانته لكن وحو كلو قرنا يا ان قرابه الله احسان فله وارساقك كرتبانته وحو قرنا يا انه وحبيرته ووح كرتبان لكن وحو كلو قرنا يا ان الهي اعماش الصالحه الله سمايه وانت نتبيرتي الله بركايه بركات من السماء والأرض إلهي كوصى صاري سبحانه ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض إذا الصورة دي وحينا بريسة وحالا لنقما إنانو نقونين ماتيريال كوقودين وجرى منهج لبات وقفك مسلم كيوباهين ولنقما حديدك وربك الله يالنا وحديدك رب الله يالنا ساينو نلشا وحكا بدلو إناد برطو وحكا استوحى وحكا بدله الحسن البصري كيو يميل عرور بندوني يا كي الرب لا يا وحبا محوكو يدي فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم باموال استغفر الله استلا يدي حوله يا عرور يا وحول بواه لسانه هذا هو استغفر الله هل شيغين ان يرو صوماليات ومسلمه امريكان جوجو شقيستا ويدي مالتي لما كنا استغفر الله باسبيايو وح هبيرات نولشيدي سورتاغا بجيران hooyaday baan maalintii dambe u imid dukaan haysata waxaan ku yidhi buu yidhi hooyo haddaad laftaada oo istakfurlada badiso dukaanka uu camirmaya islaantiina way samaysay dukaankeedu baaba camirmay kuwa kale la dhaafaa waxaan uga jeedaa marka waxa layna baraya asbaab kale aan ahayn asbaabtan maadiga aynu naqaano shilin ku darka aan ahayn oo nolosha wax ka bedeshaa inay jirto oo ah rabbus samaawaati inuu labadaba isaga qaanuunkan dhigay qaanuunkan fiisigiska iyo dhaqaalaha nolosha lagu wato isaga dhigay maca dalika isaga ana ka talaabsan kara ولذلك با كراماتك iyo mucjisaadka iyo waxa soo dhamay waa maxay waa qaanuunkan naqaano laga talaabsanaya de karaamadu waa wixii inuu naqaanayo laga talaabsaday ولذلك suuradani waxayna baraysaa marka fitanka dhamaanteed haday fitna diineed tahay iyo haday mid maaltay iyo haday mid cilmi tahay iyo haday mid sulta tahayba in laga talaabsan karo hadaad suuradani manhajkeeda fahamtid oo ah qofka suuradan akhriya adaa lahu nuurun balayri nuur baa loo ifiya oo bayna aljumca waljumca ku ifsan kara baa loo ifiya waxaan leenahay suuradatani waxay baraysaa qofka muslimka noloshu waxay leedahay wax laga boqo waxay leedahay mushkilaad ka hor yimaada waxay leedahay mugdiyadu qalaq bay leedahay
waxay suuradani ku baraysaa sakiinada xasiloonida iyo tumaaniinada iyo haddaad suuradda tan akhrido in qalbigu kuu xasilo oo aanay waxaasi ku argagax gelinin laa xoog gaal baa ku argagax gelinaya walaa dhaqaale ay kaa badanayaan baa ku argagax gelinaya walaa dunidaanu maamullaabaa ku argagax gelinaysa waayo waxaad rumaysantahay rabu samaawaati walardi inaad ku xidhan tahay oo ku taxantay walidaalika ayuha alaxiba haddaynu isnidhaahno suuradda ka warrama runtii wax badan baynu sheegi karnaa manaynan qisaska midna maynan tafsiilin tafaasiirtaa ku dhigataan oo laydin tafsiilinaya laakiin wuxuu baan rabay un u tilmaamo suuradda tan iyo waxyaabaha nolosha ay la wadaagto iyo dajaalkaasi iyo waxaanaynu jimca u akhrino ama toddobaad kasta u akhrinayno iyo sida laynooga baahan yahay inaynu u fahamno صلى الله على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين